عليكم ورحمة الله وبركاته داود كسر وهذا برنامج أنا كورة سنة شيخ حسن حسين آذن أو كمدة علماء وجوين كصومالي ذا برنامجه وحيدين الدين هي أنا جوا كان عبد القادر حسين سيدا هراء كوش شيء قبل الشيخ حسن أي قلقب قليا الشيخ حسن وحكوس دوين يا تي في دلسن مقعي وكينان وهذا هي أدبط ما صنتهاي كينان شيخ حسن وحرب السؤال دورة إن أرمجري كويديو أنت نأخذ جن سؤالها فالتاريخ هذا كوبان أنا أقسم لي بدأت بدن إنه كرنيان مقعي وهرب بواد شكتي وحل إلى حسن أما حسن حسين آذن تقريبا 1972 جنوان بشيء وذا أم الصوماليات ضدك وحول اللقبية كتر سنة هاي حالة إذا نولدنا من صدق سنة قدام بين ولا شيء ده حنكون ولا دلكن مركا وكوبا وأنا حاس وأنا سوق بقيس أنا كلام هذا علنا وحرب أنا نوجد كل برنامج كا وحرب سؤال شكوى إن كويديو علماء وحاجرت إن تفرقين كلا دوان نقطتين نبينا صلى الله عليه وسلم وحنا وجدي إن فرقين قفك نقطة ومر حبابه إلا نكي قاضي جدك رسولك صلى الله عليه وسلم أصحابتي ما أهين فرقة sidoo kale kuwii ku xigay taabiciintii ma aysan ahayn firqo magacyadan kala duwan sida al-i'tisaam al-akhwaan suufi xagee kala timaadeen waa su'aal muhiim ah keenan waxaana ku qasbanahay mar hadii aad firqooyin iyo su'aashu ay taabatay in wax yar dib loo laabto khilaafku iyo ismaandhaaf ay waa tabiica bashariya waa tabiica bini aadamku نولشيسا كمدو إلهي سبحانه وتعالى باكلا دوي عقل قوضا أركتي دوضا طبائع دوضا مزاج كودا كلا دوان تاوحي كينيسا مركا إنا إسخلافان وكلا دوان آدان سيدا اللقات كودو يحقوش كودو يقرات كودو سودا مرسانيها موكلا بدانيها يا خلاف كونا وإيمانيها مركا وطبيعة بشرية ودانكا مركا لقا إيغو وحالات عافمات وقيب قروح دا آدمها كمدا هدان اسكميد كل غير نقونو نولشو وي ما وناك سنانيسو kala duwanaanshaha fikirka iyo kamidabka iyo ka afka iyo ka dhaqanka kulli waa qayb kamida Ilaahay subhanahu wa ta'ala aayadkiisa ku tusay inuu Rabbi yahay oo Khaaliq yahay marka dhanka marka laga fiiriyo waa wanaag laakiin dhibaatada uu khilaafku keensanaya burburka nolosha bini aadamka aqaaidkooda dhaqankooda taas oo dhibaatadu ay ka imanaysaa marka dabcan way jirtaa in firqooyin iyo urraa la noqday oo aragti lagu kala tagay way jirtaa وحواه رسول الله ونويا كينا واحد عصب معها ما كنا نبي عليه الصلاة والسلام جيريو ضيبة صحابته وعسكو يرمان رافين عدي مدحوينها مسلمين تنقول الله كدبنا وحالسكو من رافي ضدك مركو نبي وجيريو ضي دين كب حقاب كل الله تعامل لها سيدنا عثمان خلاف ذي سقيبت دم بخلاف بس صحابته كل حيمت ودح دعي سيدنا علي مركي لما قعابي خلافة دي سي إمام الكيسي والله سوير خلافي معاوية سيدنا علي وكايس قبتين مركا وطبيعة بشرية خلافك مذاهبتو أركتية كلا دوان بيليهين مركا خلافك وقيبنا وقيب عافمات وخلافك كسر يسن فروع دا يجزئات خيار يركعه آدم كلا دوان يهي علماء كلا دوان يهين قيبنا هذا وقيب أنا عافمات عين ومدة كينتي إن أهل البدع أهل السنة الله كلا بحو marka ururaha hadda aad magacawda qaybo kamida marka la soo ururiyo ma kala fogo waxaan ka ahayn qoliyaha suufiyada iyo inta kale akhwaanku dhan weeyaa la oran karaa marna i'tisaam iyo wixii la halmaan la raacin karaa marka waxay la tahay inaan khilaaf walba aan aafiya dhibaato loo arag wixii uu marka ummadda dumanaya dhibaato keenaya oo marka laga digo oo la cambaaray kaasa ila diinta islaamku waa hal diin oo hada diimo kala duwan ma ahan dad fara badan baana haysta khilaafka yaani ku kala imaaday firqooyinkaas in saas loo kala baxo magacyadaas la baxsado maxay tahay kayna waa su'aal muhiim ah khilaafka waxa keenay diimeed ka diimeedana ka hadlayno waxa keenay aragti kala duwan oo laga yeeshay nusuusta qaarkood fasirideeda ama kitaabka ha noqdo ama axaadiista nabiga ha noqoto ama waaqic dhacay taariikhiyan oo horeeyay qaabkii loo fasiri lahaa ama loo agaasimi lahaa ama cibrada laga qaadan lahaa ama meesha la dhigi lahaa isku maandhaafay ba asal u ah waxa rabaan dib kugu soo laabto magacadaas asoo tiri adoo kuwa ka tirsanta anigu urur ma ahi sheekh kaynaan wali horta urur ma soo marin taqriiban hadii aan dib u noqdo 2 sano
laba sano ayaan ku aragtay dhawaa nimanka la yiraahdo akhwaanka laga bilaabo 91 ilaa 92 meelahaas taqriiban qoliyahan jamacada tabliiq muddan la yar shaqeeyay laakiin urur siyaasi ah ama xisbi tanziimi sida qoliyahan akhwaanka iyo ictisaamka wali kamid ma noqonin xirnimaan ku soo barbaaray 9 jirkayga ilaa hadda marka on xirow kutubta akhristo oo wuxuu laqbeen kara laqbeeyo ma waliga iska ahaa kolba ninkan isleeyahay waa isfahmi kartaan iskala la jaan qaada marka aanu midna kama tirsani hadii la yidhaahdo u dhowdahay qoliyaha ictisaamkan isku dhownahay inkastoo dagaal hoos noo dhaxeeyo ma jirtaa sheekh aad isku raacsantihiin oo aad hoos tagtaan hadduu ahaan lahaa sheekh maxamed cabdiwahaab ama kuwa kalaba yaad ka wadaa sheekh aad isku raacsantihiin ma jira ma yani sheekh aad hoos tagtaan ama aad isku waafaqsantihiin inuu sheekhay leeyahay anagoo ayaa keenaa kuwa aad ka dhawda al-ictisaam ka dhawda samaha ayroy sheekhan isku waafaqsanahay hatta kuwan akhwaanka iyo kuwa sufiyadu waa badan yihiin afarta imaam Abu Hanifa Malik Ahmad Shafi'i aimada waaweyn la midka ayagu sida Awzaa'i Layth ibn Sa'd Sufyan ath-Thawri aimada Waki' aima badan baan isku raacsanahay wanaagood iyo khayrkooda aad u fara badan oo saxaabadu ku qeeyeen taabiciinta ku jiraan aimada aan sheegay ay kamid yihiin marka hadii loo yimaado Sheekh Maxamed Cabdiwahaab aniga iyo qoliyahan ictisaam ba isku aragtiban taqriiban kan nahay inkastoo waayihii u dambeeyay 10 sano u dambeeyay aad moodo inay ka sii durkaayaan culaysa ka imanaya quwada caalamiga ee sharka darteed iyo barashar ka yimid qoliyaha aan jecelayn tawxiidka iyo sunnada bad moodo inay ka sii durkayaan laakiin si guud maxaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdiwahaab raxmatullaahi ta'ala waa sheekh ayagi waana marjiciyadaydi وانا بشر بني ادم او صحان يو خلدن بواليه لكن وانا قيسا بدن قليهنا اخوانكي iyo suufiyaduna sheekh xogow waa ka fogyihiin ama lid bay u arkaan cadow bay u yihiin waxaad hore uga dhawaajisay inaad tiri calanka Soomaaliyeed waa in la tuuro oo la gubo waxaan ogsoonahay in calanka marka la sheegayo uusan hadda soo bilaaban ee la isticmaali jiray xiliyadii asxaabtii loona isticmaali jiray marka uu jiro dagaal waxaana lagu kala aqoonsan jiray labada ciidan si aan la isugu darsamin dunidan hadda aynu joogno way kala qoobantaa ma kala qaybsan tahay kaba soo qaad marka adeegsid xajka waxa laga baahan yahay dalku gal iyo aqoonsi intaba waa laga baahan yahay waxa inta si in qoomiyadaha xajinaya qolo walba calankeeda ay wadato ma ogi inaad hore u xajisay oo aad kuleyba calanka Soomaaliyeed qabsatay ama calan magan u tahay qabsatay xagee ka keentay in aad tiraahdo calan Soomaaliyeed oo ummadan ay fiirsato ama isku aqoonsato inaad tiraahdo hal gubo iyadoo culamo kale aan wali laga maqal waa su'aal muhiim ah inaan ka faa'iideystana ay mudan si khaldan baa loo fasiray go'aankayga ku aadan calanka Soomaaliyeed ama calaamado dhanba calanku waa iska astaan si guud astaan kolba shay lagu garto weeye sidaad u magacawday adoo carabka ugu dhufatay dagaalada iyo ciidamada loo isticmaali jiray dhanka marka anigu aan calanka Soomaaliya ka weeraray ama aan ka cambaariyay ama alaaminkan ba aan daba taaganahay oo arko inay khaldan tahay waxa weeye calanka Soomaaliya wada aragtay keenaanow 5 gees ayuu ka kooban yahay ama xidugtu 5 madax bay leedahay oo laga wado shanta qaybood oo Soomaaliyeed labada israacada iyo in saddexda maqanba shanta Soomaaliyeed laga wado calankeenu waa aragtay tawxiid kuma qorro kama turjumayo diin iyo diyaaniya dhaqan inagu aan leenahay kama turjumayo tawxiid iyo kuma qorro magac nabi kuma qorro ilaahay kiisa kuma qorro waxa ku qoran shan Soomaaliyeed buu ka matalaya taa macnaheedu waxa weeye ninka aan Soomaali ahayn dalka Soomaaliya wuxuu ka yahay ajnabi xaqna ugu malaha asaalatan inuu xeelka qaarkood ka qabto xilliga la doonana waa nin shisheeyo ajnabi laga tuuri karo laga cayrin karo fiise iyo inuu ku soo galo iyo maxaan ku dhaadayay wixii ogolaasho dawladeed ee systemka la yaqaan ah innaguna markaan muslimiin nahay meel walba joogno dad walaalaana mid baa rabaa inaan u soo noqdo marka qolo walba calankeeda ama qaanuunka dastuurka u degsan ma jecla in laga galo tusaale Sacuudiga ka soo qaadayna Sacuudiga waa dal muslima waa dhul barakeysan magaalooyin barakeysan baa ku yaala ma ogola maanta inaad tiraahdo calankan fur muslimiinta kale tusaale anaga naga soo qaad oo Soomaali ah maxaan ku galnaa waxaan ku galnaa silac iyo dhibaato anagoo rabna inaan soo gudano waajibaadka alle sidee marka u aqbali karaan ummad Soomaaliyeed
adigoo hadda ka turjumaya muslimiintii oo leh calanka waa in loo furaa waa in muslimiintu dhan aan laga xirin sidee lagu aqbali karaa inaad tirahdo calanka buluuga tuura calan la-aan noqda ومهم جدا شاكينا وحوي هذا لبدونا كصومالي ما كان وضع هاللينو قابن وضع هاللينا لكن أنا ما كان شير وداد أمد دين الحمبار سناي وحول بون قيمين يا أم أن كهاللي وحنكو قيمين يا كو أركايا إل وداد نمو علن كمر كانوا كهاللي ورري هذا الكلجوجي قبل لقصو قاضي هذا الديرو كتاب كجروي هول علن كخصيصو جوني أنا ما هاي هي حد كتب كلجو سميه تاسع مركو حاري علن كان سو كترجمة ودنيات وأصل دين كنا كوري منيس حقنا ويلنا ولي حقوق شرعية خطر كوا إلهينا حقيسي إن لو قبض كينيس dad badan waxay qalad u fahmeen lagana carooday in atraada calankan hal gubo maadaama dad badan awooyood ama abahood ama adeeradood ama farcood uga maqan yahay dartood lagu laayay lagu gubay lagu jarjaray dad Soomaali xoogaas oo arin kale uma fahmi karaan طبعا ما wanaagsanoo ama doonayaan inaan u muuqdo inaan calanka weerar ku ahay adiguna aad difaacayso erayga keenano hadii sidii meeshu ahay siyaaqisi laga saaro balaayo noqdaa fawayl musallin hadii lagu istaago maxay isu bedelaysaa in la cambaareen hayo cadaab loo ballan qaaday ama loo yabo hay dadka tukada soo khatar maaha in allaha faqir hadan ku istaago waa gaalnimo kale hadalku hadii laga gooyo saynta hore iyo qayb iyo dhamaadkiisi oo la kala balaayo ka soo noqonaya hadalka calanka ku saabsan waa hadal dheer oo taqriiban 15 daqiiqo ah dhibaatadu leeyahay wuxuu nagu hayo wixii ka dhashay baan ka hadlay qaabkaasan u weeraray calanku hadii laakiin astaan la sameysanayo aan dhibaato diineed xambaarsanayn anigu ma diidani marka inta inaan kaga tagnaa ila quman saanan ugu muuqanin calanka duulaan ku ah tayib waxaan insha Allah rajaynaynaa in si wanaagsan u fahmaan qarax waxa ka dhacay ex control waxaad ka dhawaajisay inaad tiri 4 arday ma ahana intii kale waxay hayeen gaalo wali waxaad si raacaysan inaad tiri ila xog ogaal ah oo aan ku kalsoonahay ayaa ila soo wadaagay qofka halkaas jooga ee kula soo wadaagay intaas ma waxa jirta calaamad muujinaysa dadka halkaas ku sugnaa inay gaalo yihiin adigu sidee ku xukuntay waxaan goobjoog ahayn waa su'aal adag laga yaabo markaan dhinacyo badan taabato keenano waana muhiim jiddan inaan khalad jiray bariyahan oo baraha bulshada socday hadda koran mar baan baraajo isbuucan dhexdiisan filaya inaan maanta ka faa'iideysto maadaama marti idin ahay awsha inaan wax ka saxo hadalka gabi ahaan horta ma jiro waa beeninaya ma jiraan egas control hadal ku saabsan oo taageera oo aan jeediyay ka xasanahan ma jiro xaqiiqadu waxa weeye markuu ay hawshu dhacday egas control ee dhibaatada muslimiintu ay gaadhay muslimiin badan meesha ku baaba'een oo Soomaali ah waa ka hadlay oo baraha bulshada Telegram anu aan leeyahay bidaayatu sabiil leeyahay ku soo qoray article dheer wadaad kala qoray anaga u bogay waa keenay aminkan article-ka waa ku jira waa la arki karaa waa la akhriyi karaa taa marka wax jira ma aha oo waa been dadana khaas ah leh ay qaab kale u fasireen kana faa'iideysteen dalkan Kenya sirdoonkiisa qayb ka midana way la soo xiriireen sida hadda su'aalaha ii weydiiyeen wixii jiray baan u sheegay waa dhamaysanay aduguna waxaan jeclahay marka inaan sidaas oo kale aad u fahanto bulshaduna sida ay u arkaan hawsha hawl jirta marka in qofkaas laakiin ku yiri wax ma joogo gaale ahay ma jirto intaas waa in la raaciyo sister kama hadlinba egas control afgoy ma ka hadlinba waa been waxa ka dhawaajisay inaad tiri gaalada hantidooda waa la dhici karaa oo way banaan tahay waxaan ognahay in la xarantimay gaalka aan xarbiga ahayn oo marka diinta duulaanka aan ku ahayn inaadan xoolihiisa taaban karin dad badan oo gaalaana ay ku soo islaameen dhaqanka wanaagsan ee islaamku uu leeyahay aaminka ah arintaas maxaad ku daliishan kartaa haddii jirto inaad tiri gaalada xoolooda waa la dhici karaa tii hadoo kale bay la mid tahay dhan markaanu ka eegno keenano su'aashaani asaguna sidoo kale waxaa jira hadal la gooyay oo aad loo dhaxwado baraha bulshada dad waaweyn oo xataa culimo aan muday xataa ay ku khaldameen iska dacaamay iyo dhalinyaro iska badaay hadalka saa u qayxan oo gaalo xoolaha la dhici karaa ah waligay ma dhihin haddana ma aaminsani mana ku baaqayo axadka isku dayana xad khaldan inuu yahay arkaa marka kitaabka manhajka akhrinayay iyo kutubta aqaaidka meelo kamid aan ku soo qaaday ra'yiga fuqahadu ay qabeen afarta madhabka Xanafiga Maalikiga Shaaficiga Hanbaliga iyo madhabta dhanba gaalka xarbiga dagaal in ka dhaxeeyo Syria saaqba
inaad wax u yeelayn karto asaguna waxba ku yeelaynaya dad colaad baa idinka dhaxaysa rag hadduu dagaalamo keena waad ogtahay rag isku raayo wey marka haddaad awood iyo beer wax kaga qaadan kartana waad kaga qaadan hadday tabar meel ku dhigtana kolaad wax hado ama wax goosato ama la baxsato waa un dagaal iyo xaaladihii iyo ahkaamtii wey waxaan ka hadlay anigu kutubtayda kaga hadlay waxa waa gaalka xarbiga ah ee dagaalka idan ka dhaxeeyo ninku dagaal ka dhaxeeyo suus asaguba uu sir iyo saaqba u dhibaataynayo asaguna wuxuu u geysan karaa baan ka hadlay laakiin waligay ma sheegin gaal xoliisi baa xalaala asaga dhigiisa baa xalaala gaal oo dhan markii taa ma dhihin waxa raba inaan ku raacsato sheekh waxa jirta arin xan hoose ah oo inta badan wareegta magaalada oo ah in mashaayikhda ka jirta dalkan ama mashaayikhda Soomaaliya aan dhahno inay la shaqeeyaan sirdoonada dalal kale ah marka waxaad ii qarinaysaa wadaada waa ma jaajuus tahay maya kuma qarnay inay arintaas jirto aan ka gudbo horta iskayna waa su'aal muhiim jiddan hasa aatee wadaaduhu waa binaadan waa naflay sida aadamu u khaldamaan inkastoo aqoon leeyihiin dadka wax dhaamaan wax dheer yihiin haddana waa basharan macsuum ahayn way wal hayy la tuman alayhi alfitna ysalafku yiraahdaan ruuxa nool fitna aamin loogama aha wax walba ka suura gala Soomaaliya waxay tiraahdaa dad iyo duurba waxaan filaynin ba kaaga soo baxa way dhici kartaa tuunkana waa jira si guudna wadaada badan baa ula shaqeeya dalal shisheeya iyo sirdoonba maxaa yeelay andimadan iyo maamuladan hadda islaamka sheegtay aad ogtahay xorriyad siyaasadeed ma jirto wadan u madax banaan aragtiisa siyaasadeed iyo madax banaanidiisa midna ma jiraan niman hadda aan tuunsan oo farabadan hadii si gooni aan soo aragno aan ka warrami la waajin laakiin hadda barnaamij la baahinayo hadda kuma sheegi karo diyaarno inaan umada siiyo waata Sheekh Xasan waxa jirta marka aad muxaadaraynayso inay ka muuqato kalsooni xad dhaaf oo farabadan oo aan ka muuqan culimada kale maxaa xagee la isdhihi karaa Sheekh Xasan oo kaliya kalsoonidaas waxay la tahay waa iska uun aragti iyo qiyaas ama adiga keenana wariya ama bulsho kula wadaagta laga yaabaa inay xaqiiqo ahna waa dhici kartaa waxaan is oran karaa haday hada kalsooni jirto kalsooni laba qaybood bay ka timaadaa inaad aqoon sare u leedahay mowduuca aad ka hadlayso way keentaa waxa kaloo keena inaad aqoon darraba ku hadlayso oo nin iska warqababa aadan ahayn oo jaahil iska dhiiranaya aad tahayna waa dhici kartaa labadu waa dhici kartaa laakiin waxaan isla inta badan waxa ka qayb qadanaya dadku inay u arkaan inaan kalsooni ku hadlayo dhowr qodobka koobaad mowduuca aan ka hadlay inta badan keenana waa iska diyaariya dhan walbaan ka istaagaa intaan baari karaan baaraa tabartayda qodobka labaad markaan hadlayo inta badan ma tixgeliyo ama reehebel kugu qliyo ma tixgeliyo ama ad ganacsaday iyo bulshada dhow qaraan ka weydaa ma tixgeliyo ama hebel intuu xumayso salaan kala leexda saddexda qodob marka laga soo tago tabiica ilaahay dhaliyaa jirto waan iska kaftamaa oo dadka cashirka iyo hadalku kaftamaan iska ah kaftankuna dadku wuxuu gelinayaa ruuxa ku dhageysanaya ama ku daawanaya wuxuu arkayaa inaad tahay niman culaysba ku haynin hadalku wuxuu ka hadlayo u sahlan yahay tabiicada marka kaftanka iyo hawlaha horan ku soo sheegay inaan tixgelin waxyaabaha qaarkood iyo mowduucan diyaariyo inahaas aad moodaa inay ka qayb qaadanayaan kalsoonida laga yaabo bulshada qaarkood inay dareemayso waqtiga yar aad noo soo hortayna waa kaaga mahadcelinaynaa daawadayaal waxaan jeclahay inaan intaas ku soo gabagabeeyo barnaamijka waxa idin daadiinaya anigoo ah Keenan Cabdulqaadir Xuseen halka aad ka daawanaysan waa Dalsan TV tan iyo intaan kulmi doono barnaamij caynkan oo kale waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaan Allah